dhinaca saxaafadda oo maan hadal laakiin maanta wax iga hadliyay ayaan la hadlayaa waxaan ka hadlayaan cambaaraynaynaa caburinta saxaafadda ku dhacday ee waayahanba socotay ee tan ugu dambeysay keebilka ahayd hadday tahay hubaal hadday tahay haatif hadday tahay dhalinyaradan la xidhay ee muxuu ahaa keebilka hadday tahay kuwa maxkamadda lagu saaray kara adag adeer waa arrin ceeba saxaafadda in la caburiya waa arrin qaldan reer kulmiye anigu waxaan ahaa udub kolkii saxaafadda madaxweynaha sanka dheer loo samayn jiray maxay dhigta dheer loo samayn jiray way ku qosli jireen waxaasina cid waxa ma yeelo anu dawladda waxaan haystaa dawlad bilaa dulqaada oo ay wasiir ka yihiin niman dhalinyaro ah oo cadhaysan oo hebel muxuu yidhi kolka la ydhaa cunaa kaga ururaya waxaan leeyahay dalka dulqaad baa lagu dhaqaya arrintan shalay subaxdii dhacday ee home kebilkana in saqbadhun ama salaad subax un loo daata guri carruuri joogto waa arrintii laga halgamay weeyaan nin suuqa laga heli karo nin duhur loo tegi karo in habeen nin loo yeedhi karo waraaq loogu yeedhi karo nin taleefon loogu yeedhi karo in saqbadh loo daataa waa arrin xaaraana weeye wixii ka dhacaa dee waxyaabaha noocaasi lindil bay keenayaan ninkiiyo ilintuug baa kugu qardayn karo xilligaa soo dhici kara waa arrin qalade ha la joojiyo farxad xaaji calina ma geeyo arrinta noocaasa inamada saxaafadduna dee wax jiruun bay sheegeenay kuwo been abuura oo waxaan jiri sheegi jiray ayaan lala hadli jirin maanta ma waxaynu ku soconnaa waxaan xasuustay riwaayaddii xorriyo maxay ku yidhaahdaan ha joogin allah ha joogine allah ha hadlinayde farxaan xaaji cali maxay cable tv u hadlay haddii guryaha lagaga saaraya ama dee waxa weeyaan guri la saaraa waxba qiimo ma samaynayo laakiin dawladdii shalay kebilka jeclayd maanta inay kebilkii halkaa ka marto arrin maaha annaguna waxaanu arkaynay kolkii horeba saxaafad madax bannaan oo dadka cadhaysani ku nafisi karaan oo ninku kolkuu cadhaysan yahay uu hadal innaga hadal un weeyaan waxeen gacanna ma jirto qorina ma jiro laakiin ninka loola tagay iminka saa xildhibaanada berbere oo kale gacan loola tegay xildhibaanadii lasoo doortay waa qalad maamuus bay leeyihin tixgelin bay leeyihin arrinta suxufiyiinta ee gara adag iyo gebileyna iyaduna waa arrin adagoo waxa weeyaan inanka suxufiga ah ee iyo inamada kulmiye ka baxay dee may jebin dayrkii makaan ee xisbigun bay ka baxeen in la xukumo oo weliba inta gobolkii laga soo qaada meel kale la geeyo oo reerkoodii aada looga fogeeyo si aanay wax ugu geyno xaasidnimaa ku jirta xukunun maayo macal xaasidnimo waxaan leenahay golaha baarlamaanka ee ishaysta laftiisa oo ninka majority-ga ah ee sharciga laga sugayo ee wax walba laga sugayo dee inuu golaha dhexdiisa ka hadlay wuxuu doona yidhaahdo laakiin golahii baan u banaynayaa qofka hadlana waxaan ku sameeyey ma arkaysi saasay u muuqataa iminka waa dalkii wuu kaxsan yahay meel xun buu marayaa waxa lagu shaqayn jiray dawladihii hore iyadoon laba hadal halkaa maxaa ka jira waa la tegi jiray waa la dejin jiray saasay ahayd ama guurta ha tagto ama dadatay ama dawladda ha tagto waxa dadku ka cabanayaan baa wax laga qaban jiray ku jiqsiidan ma garanayno dadkana waxaan leenahay haddii lagu doonayo inay wax dhacaan muddo kordhin dalka idinkaale
dadkana waa dadkii lahaa wax badan u dulqaato oo waxa la idinka doonayo iyo dhicin waxa la idinka doonayaa iyo dhicin cid qori la soo baxda qori meel walba yaala cid waxa ayaan la arkay laakiin wixii afa wax kasta oo jira hala sheego dawladani waxaan hambalyeynaya horta gabadhii tiri ee magaca bixisay tiri way subuga dadku ha ku sheegaan qabadkaaga la sheego dawlado hore badan baa jira Soomaaliland nin waliba wax uu qabtay ninka qabtay ee Soomaaliland ku dhawaaqisteedii waa wax qabad weyn ninka daydigi jidka ka qaaday ee wax walba qabtay waa wax weyn ninka dimuqraadiyadda qabtay waa wax weyn waxaad moodaa in imika uu dawladdu dhalatay Soomaaliland ku dhawaaqanayo kolka aad eegto wax qabadkii laga sugayayna ma jiro ee ay ku balan qaadeen matala gabilay baan jooga gabilay maanta gabilay baan ku hadlayaan shirjiraad ku qaban waxyaabaha weynay reer gabilay kolkan uu dubtay inagu oran jireen waxay gabilay 6 gobol iyo gabilay baa tii soo raacisay xukuumadda daayirayaale waxay ugu dhawaaqday gobol waxa xukuumadda laga sugayay in gobolka baas garayso waxa golaha laga sugayay in gobolada baas gareeyo tii soconaysa waxa laga sugayay in xeerka caasimada baas gareeyo waxa la wixii kama hayno lama hayo waxay dhaan wax qabadkii lagu ololeeyay dhamaantii waan qaban waa lama qaban kolka aad eegto intii aad joogteen wixii la balan qaaday rakaashan waa inaad raadeen ma qaban matalan biyaha wajaale wasiirkii macdanta iyo biyaha hore wuxuu yiri waxaan ku haynaa iyadoo kaasha halkay martay ma wasiirkii kolku tamarta tagay ma isaga qaatay waxa la yiri oo dawladdu iyo madaxweynaha dhammaan iyadoo la wada socdo boorama laga yiri jidka kala baydhaya dilow dhaxeeya lacagtiisa kaashan wayna halkay martay waxay dadkan reer gabilay sugayeen oo lagu yiri haddaan xukuumadda qabano gobolkiina waa banaanka halkuu maray waxay wasiirada nagu yiraahdeen airportka gabilay inta waxaanu sameyn doonaa ka ugu horeeyo ahaan doona airportka kala bayd airport halkuu maray adeer wax qabadna ma arkayno laakiin dalka haynaga burburinina bal waxaad qabanaysaa kale ayna soo gaadheen dalka haynaga burburinina saxaafadana xorriyadeeda lagu soo celiyaa inta maanta dhaafi maayo kolka idinka hadashaan ka jawaabi doona wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh